Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Wadal macbil waxaan halkan kugu sharaxi doonaa digital microscope ayaad u jeedaa. Waa bandhigeena dhagaxshil mineral tools agabka macaadinta iyo waxyaalaha lamidka lagu soo bandhigo. Marka mudane macmiil waxaan arki karaynaa baasha digital microscope-ku inta shay oo loo isticmaali karo. Hadday macaadin noqoto, hadday aalad kaleeto noqoto, hadday noqoto mataqaanaa all industrial oo dhan ayaa loo isticmaali karaa. Mashiintu markay xirxiran tahayna walaal sidaas ay u egtahay. Mashiintu marka walaal waatan iyadoo mataqaanaa rakiban oo hadda isku xirxirna wataa insha Allah tacaala waad arki karaysaa kulliba. Si nadiif ah inaad uga jeedidaan u malaynayaa wataa aan gacanta ku hayo sidaas ay isugu xiran tahay laserkeedii iyo mataqaanaa masuuta waa ka halkan waa fadhigii. Sidaas oo kale halka waxay ku wadataa maxaan ku raadayay USB cable oo loogu talagalay PC-geeda ama mataqaanaa muxuu ahaa laptop-keeda inaad ku xiratid haddii ilaahay rado insha Allah tacaala. Halkan waxay ku wadataa drive ama mataqaanaa CD mataqaanaa masuuta loogu talagalay drive-kii caadiga ahayd oo loogu talagalay maxaan ku raadayay in laptop-ka lagu programyo maadaama bahashan ay tahay mataqaanaa masuuta qalab mataqaanaa u baahan in lagu xiro mataqaanaa masuuta alaabta computerka iyo waxaas oo kale lagu connect gareeyo. Waa 3-in-1 waxa la dhaho. Alaaba ay ka koobanta marka walaal waa ka halkan waxa weeye mataqaanaa waa pixelkeeda ama inta ay mataqaanaa awoodi karayso waxa weeye mataqaanaa waa 50 times waay. Aad arki karaysaa waa 50 times 1000x ayaa mataqaanaa masuuta ay gaari karaysaa insha Allah tacaala. Markay saas ugu xirxiranto waa arki karaysaa insha Allah tacaala anaga isku xirnay. Laakiin waa loose ayadoo furfuran ay mataqaanaa bookska ku jirta insha Allah tacaala sida caadiga ah. Marka macaamiil wixii kala faahfaahinay insha Allah tacaala buuggeena ku soo bandhigno qalabka toolska insha Allah tacaala dhagaxshil mineral tools nagala soo xiriir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.